madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maleegaya inuu shirqool ku khaarajiyo madaxda xisbiyada mucaaradka isku daygan daawadayaal sheegay maaha ugu Muuse Biixi Cabdi waxay taariikhdu diiwaan gelisay shirqoolkii iyo jidgooyadii uu galay gudoomiyihii hore ee Arsenal Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo muddo u xidhnaa arrintaasi Muuse Biixi Cabdi waa gacan ku dhiigle aan arxan lahayn maalintii awaare loogu soo xidhay tababarka oo inankaas uu ka mid ahaa dhalinyaradii lagu soo daray inay yimaadeen meel dibile ku dhow markay yimaadeenna galabnimadii inuu fayliyay Muuse oo siriga ugu dhuftay soo fayra inan baa ka habsaamay faylkii joog buu yiri uu istaagay isoo isla faylka gaar xabad buu ku dhuftay inanka uu dhintay waayihiisii mugdiga ahaa haddii aad eegtana waxaad xasuusanaysaa calan caskii dagaalka kula jirtay Arsenal xasuuqii 1994 ilaa 1995 qaybo ka mid ah shacabka Soomaaliland lagu gumaaday dadkii kala duwanaa ee uu u dilay hankiisa siyaasiga ah marka lagu daro kuwaasi dhaawaca dhimashada iyo afduubkii uu geystay intii uu xukunka hayay waxa ka daran shirqool halis badan oo hadda uu maleegayo waa khaarajinta shakhsiga ay kursiga ku loolamayaan ee xisbiga 80% shacabka Soomaaliland hogaaminaya ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro muusahan u halcanaya dhiigga shacabka iyo madaxda mucaaradka waxa uu arkaa inuu xukunka ku joogi karo haddii uu ka takhaluso Ciro iyo qof kasta oo xukunkiisa diidan muuqaalkan argagaxa lehna waa mudaharaadkii dhowr bilood ka hor ka dhacay Soomaaliland laba gaari oo fulinaya amarka taliya ku xigeenka ciidamada RRU-da Khadarlaan Gareh oo adeer uu yahay Muuse Biixi ayaa fagaara cad waxay qaab shirqool ah ku doonayaan inay ku khaarajiyaan Cabdiraxmaan Ciro iyo gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan markii xogtaasi la daba galay waxa caddaatay in Muuse Biixi Cabdi ka dambeeyay dabinka lagu khaarajinayay madaxda mucaaradka balse qadarka Alle waa ay ka badbaadeen sidoo kale waxa jira hawlgallo kale oo ka dhana musharax Cabdiraxmaan Ciro oo kulmiye ku banaysanaya dhiiggiisa shirqoolkaasi oo Muuse Biixi Cabdi u soo dhiibay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed iyo maxbuuskii wasiirka noqday ee Cabdilaahi Abakor waxay caddayn cad u yihiin abaabulka weerar ee Muuse Biixi Cabdi ku doonayo inuu ku qaado guriga Cabdiraxmaan Ciro isagoo adeegsanaya ciidamada argagixisada loogu talagalay ee RRU-da ciidan xamar ka yimid oo magaciisa iyo tiradiisa iyo codkiisa iyo baaritaankiisa inay Soomaaliland argagixiso ka abuuraan hadda ku yimid oo ciidamadeena booliiska uu qabtay waxaan halkan ka sheegayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro inuu ciidanka halka yimid qofka xidhiidhka qale ee lacagaha u diray inuu ka mid yahay maanta ku sheegay maanta Ciro dhowr iyo 30 qof buu ku haystaa meesha oo ciidankiisa oo reed jufadiisa oo ciidanka qaranka inuu hubisita dawladdu way ogtahay hadalladan oo ah been cad oo lagu maran habaabinayo bulshada waxa ay ka marag iyo marxaatiba yihiin weerarka gaadmada ah ee Muuse Biixi Cabdi ku qaadi doono guriga musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro cadaymahan aan ku hayo ee muujinaya dhagarta Muuse Biixi Cabdi uu maleegaya Cabdiraxmaan Ciro intaasi uun maaha balse habeenkii 13 November ee lagu dhawaaqay go'aanka mucaaradka ayaa la ogaaday fariin sirdoon oo daaha ka qaadaysa in Muuse Biixi Cabdi madaxtooyada uga yeedhay taliyaha RRU-da in Axmed Tiir amarna ku bixiyay inuu xoog ku galo hoyga musharax Cabdiraxmaan Ciro kuna khaarajiyo amaba soo xidho haddaba daawade dhammaan dhacdooyinkaasi waxa ay liddi ku yihiin xasiloonida iyo nabadgelyada iyo sidoo kale amniga Soomaaliland Muuse Biixi Cabdina hadda waxa uu banaysanayaa dhiigga shacabka iyo madaxda xisbiyada mucaaradka sidoo kursiga ku sii joogi lahaa intaasi uun maaha ee bilo kooban ayaa laga joogaa markii weerar habeennimo lagu qaaday guriga musharaxa Cabdiraxmaan Ciro balse markaasina alla waa uu ka badbaadiyay oo dabinkooda uma suuro gelin xalayto abaara afartii ama waa ku dhawaadkii salaada fajr ku dhawaadkeedii waxa dhacday dhacdo aad u foolxun in ciidan guriga murashaxa madaxweynaha xisbiga wadani yimaado dhammaan ficiladaasi iyo xogahaasina waxay xaqiijinayaan in madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi abaabulayo agar maleegan
oo lagu weerari doono guriga cabdiraxmaan ciro waxaana fulin doona ciidamada argagixisada loogu talagalay ee RRU-da loo yaqaano waana ficil iyo sidoo kale waxaan ugu bahayn oo Muuse Biixi Cabdi lagu yaqaanay sanado badan.